gudoomiyaha gobolka Sool oo kula hadlayay warbaahinta guriga gobolka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda guud ee gobolka sidoo kalena waxa uu beeniyay warar ku tiri kuteen oo oranaya in Laascaanood imaan doonaan mas'uuliyiin ka socota qaramada midoobay kuwaas oo qiimeyn doona xaaladda magaalada. waxaan leenahay gobolkan aan ku suganahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabadgelyo labada casho ugu dambeysay wax dhibaato oo ka dhacay jiidana labada casho ugu dambeysay haweenaatay ma jirto wayna xasiloon tahay ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku sugan yihiin fariismahoodii deegaanka Tukaraqeed meel ka xagga hore ee bariga ka xigta 10 kilomitir magaalada Laascaanood markaa soo gudaheeda waxaa la isla dhexmariyay 24 saacadood u dambeeyay ama 48 saacadoodba war ku tiri kuteena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah oo ay fidinayaan dad caadaystay ama ay dhaqan noqotay inay dhiig dadka cabaan dadkaas oo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo ku tiri kuteena oo oranaya Laascaanood waxa ku soo wajahan wafti ballaaran oo qaramada midoobay iyo AU-da oo shacabka reer Laascaanood raba inay arkaan waxa leenahay wax alla wax ka jira ma jiraan halkan annaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa Jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafti imanaysa haba yaraatee oo halkan imanaysaana ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxa loogu akhriyay waxaan leenahay warkaasi dhagihiinu uu gelin waa been sal iyo raatoon aan lahayn dadka dibadaha caruurtoodii geystay ee ubadkoodii waxbarashada oo aan la haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta caydha ah ee laga qaado dadka dawladaha kale ku nool ee facebookida propagandiga soo gelinaya ee ummadda jaawarin waxa leh isla yaabil rabaan baa lagu jiraa. geesta kalena taliyaha qaybta Laascaanood ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ka hadlay mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ammaanka magaalada Laascaanood waa sugay waa jiraan sidii hadalladaba ka maqlayseen ama magaalada banala joogtaan caruuro yar yar oo la marin habaabiyo oo waliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo saacad ka hor ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyay talaabuna ka qaaday haddeerna nabadgelyo ku sugan tahay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fikirka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysa waxaan leeyahay waxa idinka wacan inay idinku waxa qabtaan ka hadashaan oo ficil ka hadashaan ama cad ka hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daayaan saraadeeyay wararka TV-ga Universal Laascaanood.